السلام عليكم dhalinyaro waan salaamay waxaan hore uga soo hadalay 10 cashir ama 10 qodob oo si wax inoogu kordhinaya haba yara min 5 baan uga soo hadalay maanta waxaan ka hadlaynaa hadii Ilaahay idamkeeda leeyahay 5 kale qodobka 11aad ama cashirka 11aad raasimaalka ugu badan ee aad haysato waa dadka markastoo dadka aad barato iyo doorka aad ku leedahay iyo qof walba darajada agtiisa aad ka leedahay iyo kaalinta kaaga banaan aad yaqiinsan tahay raasimaalka ugu badan ee haysatay waa dadka qodobka 12aad aadamanimada dhabta basharnimada runta waa inaad noqoto ruux arxan leh oo dadka turaale u leh intii wax qabad ah ee karaankiisa ana wax la qabta intaad walaalaha caawiso Ilaahayna ku caawinaya cashirka 13aad ha noqon qof kalidii noole ah oo dhaqanka kalidii noolanimada ah ha yeelan oo ha noqon qof inuu beelaba ay kaligii ka soo haray limoodo oo wax walba aniga un oo inuu isagu talaabo kasta oo nolosha oo wanaagsan yeeshad qof inuu kaligii xaq u leeyahay maahina aan dadka kale waxba u arag ha noqon qodobka 14aad waxa ugu qaalisan ee qofka bini'aadamkii haysto iyo nooluhuba waa aminta goorta waqtiga ama xilliga marka inuu deel iyo macna la'aan kugu dhaafo marnaba ha ogolaan ee ka faa'iideyso si hadhow marka aad weynaato noloshaadii 70 ilaa dhowr iyo 70 sanadood soo ahayd waa hadii Ilaahay ku gaarsiiyo oo aad nolol ku gaadhay markaad waayahaagii nololeed dib u eegto aanad uga qoomamaynin oo hadii dib lay celin lahaa oo dhalinyarnimo lay ku celin lahaa sidaasaan yeeli lahaa aanad oranin imika qabso waxaad ku farxi lahayd hadhow markaad kaligaa meel fadhiisato naftaada la sheekaysanayso dibna u eegayso waayahaagii nololeed si aanad uga qoomamayn oo aad ugu faraxdo waayahaaga nololeed ee dib u daalacanayso hadda qaba wixii aad ku farxi lahayd iskuna day inaad isku taxallujiso inaad dariiqa tuurmoon marto qodobka 15aad hawl kasta oo aad gasho oo aad dadaalkayga hurto macnaheega dhabtii maaha in aad natiijadii aad ka doonaysay aad hesho ee adigu inaad falka samayso oo dariiqa quman aad marto unba laga doonaya natiijada aad ka doonaysay inaad ka heshay muhiim ma aha oo Ilaahay bay taasi ku xidhan tahay laakiin adigu dadaalkayga marka aad la timaad xataa hadii aad weydo wixii aad ka doonaysay hawsha u gashay Ilaahay baa ka abaal marinaya waa markaad wax wanaagsan oo xalaal u dawmar waa tiyaayadii quraanka ahayd naf waliba waxa ay la timaad ee kasbato ayaa lagu abaalay idinkuna dhalinyaro wixii tala iyo tusaale aad haysaan ee wanaagsan faalada inoogu reebi kartaan ama commentiga wabillahi tawfiiq